xasan sheekh oo lacago ku bixinayo burburinta ciidamada xoogga dalka qaar ka mid ah ciidamada dawladda ayaa maalmahan wadeegadood ay ku diidan yihiin diiwaangelinta ay wado dawladda federaalka ee ay ku tiro koobayso tirada tayada iyo agabka guud ee ay haystaan si ay u helaan xuquuqdooda rasmiga ah ee ay ku leeyihiin dawladda. haddaba maxaa keenay xilligan yaase mas'uul ka ah in ay ciidamadu diidaan diiwaangelinta kana soo baxaan dhufaysyadii ay cadowga kaga hor joogeen shacabka Soomaaliyeed? xasan sheekh intii uu talada hayay muddo sanad iyo 9 bilood ah wax mushaar ah ma qaadan ciidamada dawladda, mana jiraan wax gadood oo ay sameeyeen muddadaas. waxaa jira siyaasiyiin lacag ku bixinayo inay kiciyaan ciidamada dawladda si ay uga faa'iideystaan danahooda siyaasiga ah. raggan ayaa doonaya in ay iska hor keenaan ciidamada iyo madaxda dawladda federaalka. xasan sheekh iyo kooxdiisa ayaa maalmaha dambe waday in ay la hadlaan ciidamada jooga furiimaha dagaal ee ku beesha ah, isagoo u sheegaya inay iskaga baxaan furiimaha dagaal iskana diidaan diiwaangelinta ay wado dawladda federaalka oo ah mid aysan dani ugu jirin iyaga iyo saraakiishooda. xasan ayaa lacag aan tiro badnayn u geeyay ciidamada, waxaana uu marsiiyay lacagtaasi saraakiil hore ula soo shaqayn jirtay kuna beel ah, kuwaas oo hortaagan diiwaangelinta ciidamada dawladda oo ay wado wasaaradda maaliyadda iyo taliska ciidamada xoogga dalka.